waxa quluubtiina ku jira iyo acmaashiina سيدرادد حديث النبي يقول لها التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا انتو لابتي ستلمامي النبي عليه الصلاة والسلام صدح جير أيوح إلى الله كعبسه هلكو كجرة الله كعبسه هلكو كجرة إذن قلبك إيا عافمات قب كيس أما بكان كيس أما دمشديس ووحيابا وقوم مهمسا وقفك مسلم كيوبا هي إنو إن بدن إيغو warma kuwa qalbigoodu dhintaad ka mid tahay mise kuwa bukaabaad ka mid tahay mise kuwa caafimaad qaba waa saddex darajo oo kala durugsan caafimaad qabka qalbiga waxa ku xidhan salaax ama wanaaga adduuniya aakhiraba fasaadka uu qalbigu fasaadana waxa ku xidhan aakhiriya adduunba fasaadkeeda waayo qalbiga waxyaabaha fasaadiya gaalnima ka mid ah riyaa iyo sumca iyo istusbaa ka mid ah maxaan ku idhaahdaa iyo ismaqashiis baa ka mid ah kibir iyo isla weyni baa ka mid ah cujbi baa ka waxyaabaha bulshada diidaba inay bulsho noqotaa waa amraad alquluub bulshadu hadday ka caafimaad qabto qalbiga waa bulsho nadiifa waa mujtamac jiri kara nolosha caadiga adduunyo haddaanu se quluubta ka caafimaad qabin waa bulsho cafina وبلشة أنشري كريم قلوبته وبكوتا وحنا بكيسية قال لماذا كفرية وحاب بكيسية معاصدة وحاب بكيسية سيدي ذنوب تقلبي قدك تأكل ووينت ومثلا احنا وبهنا أعمال القلوب كلا تلمامه وحنا ووحلقنا ولا قلبك إلهي الذكريس هي حسكيس قرآن كأخرسكيس أوراد الله إمات كودا صلاة هي عبادات هي واجبات كاللغو فريسة مين تودا وحاسي قلبك إنه ليا وحنا والله صافية على قلبك أوه الريو الرياضة هي السمعة رياو وعمل قلبية حديث النبي واحد المام صدقك النار تبى الله وجهر شدة يا أهل التوحيد كأني كواسيين صدح دي النار توجه الرية أول من تصعر بهم النار بالنبي صدح توجه الرية نار تلوج الشدية وصدح قلبك كبو قاضي حيث ماين أعمال صالحة لكن قصدك إرادة عدة أعماش صالحة وحكي الربين بقلدن طيب ووام حي وحو نبي المام عليه الصلاة والسلام كوه الريان نار تلوج الشدة ومد شيخها وقرآن أخرس بدنا ودي دبتنا وحلا ويدا هذا وحلو برين معاها محط سميس إلى هو أنا أخري ويدا هذا هبيني أنا الليل وأطراف النهار بان قرآن كآخرني وحلا يدي واحد وآخرنيس إن لو ويدا هذا هبل وعالم يوا قاري يوا نوحي قارنا دينتي نواتي لويدي ضدك كويدا هذا هبل ونعد معانيو وشيخيو ووداد أنا قد برضو فنيو أنت أنا هرا لويدي خلاص عند الله وحبك ما حجان بلا لي مركه نارتا قلبا لا يرادا انت سدا والبدوني سنتينا هشاي مid baa yimaada yiraahdo waan jihaad ilaahu dar taban u dagaalamay waa kan waxa la yiraahdaa waxaad rabtay in lagu yiraahdo hebel waa geesi iyo xagu ka xiga ninba ka xiga iyo dhankiisa laga soo dhici maayo intaasaad rabtay intiina waa lagu yiri baa rabbi yiraahdaa aadna naarta gal mid wax bixiyayna isna waxa la yiraahdaa waxaad rabto in lagu yiraahdo hebel waa nin faxal oo gacan furan deyntiina lagu yiri isna naarta gal idan waa acmaal alqulub waxa amalka ku kaaga dhiga wax qiimo leh haduu amalka qalbigu xumaado oo ama riyaa galo ismaqashiin ama uu galo iscajabin iyo isafuufid iyo hal lagu sheego iyo miyaanan hebel ahayn aad duddo hadday dadku magacaaga hore u sheegi waayaan iyana waa la midoon waxba ka waa hal baad lagu lisaday Soomaalidu sheegaysa waa ana cid la ku dhacay qulubta maxaa nadiifiya caafimaadiya ilaahay kitaabkiisu inoogu sheego waxa la yiraahdaa qad jaa'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin
xagga rabbi waxa idinka timi baa ilaahay leeyahay mawcida waano iyo wa shifaa'un lima fi suduur laabtu waxay ku caafimaado laabta maxaa laga caafimaadinaya waxa laga caafimaadinaya aljahl iyo wuxuu dabada ku wato oo shirki iyo gaalnimo iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafsi iyo wixii la mid ah waxa laga caafimaadinaya shubuhaat wa shukuk waxa laga caafimaadinaya shahwaatu nafs waxa soo dhan waxa nadiifiye ee maydha ilaahay wuxuu leeyahay wa shifaa'un lima fi suduur laabtu caafimaad u yahay nolosha dhan buu caafimaad u yahay laakiin waxa la inoo tilmaamaya laabe hadday caafimaado nolosha inta kalena inay caafimaadi doonto وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم إلهي وحينا tilmaamaya qulubtu inay caafimaado in xumaha laga saari karo waxa ka saare caafimaadiyana inuu yahay rabbi subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa waxaynu u baahannahay inaynu dib qulubteena u fatashino qulubteena inaynu dib u fatashino baadhno oo aynu nadiifino daahir yeelno ka daahir yeelna xaasidnimo iyo xaqdi iyo xumaan iyo xan iyo wixii la mid oo dhan ka daahir yeelno ka daahir yeelno waxa laaliya waxa mubtilaatul acmaal waxa camalka buriya adigoo shaqaynaya haddana inay shaqadaadu wax ka soo qaad yeelan weydo adoo salaad tukanaya salaadaadu nafci yeelan weydo waa mid subxaanallah marka ayuha alahibba waxaynu leenahay quluubtu waa meel u baahan in ihtimaam gaar la siiyo oo aad xisaabtanto oo aad tidhaahdo qalbigaagu intay xaasidnimo ku jirtaa intay qilli ku jirtaa intay colaad ku jirtaa intuu nadiif yahay intuu daahir yahay intuu rabbiga weynaynaysa oo aan wax kale oo dhibi ku jirin kaasaynu u baahanay inaynu samayno sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin